taageero ayaa maartay dadka ka heshay waxayna isleeyihiin midnimadu ay mid lagu guuleysan karo inay tahay hal sano idinkoon gaarin baad waxa keentay khilaaf kuwa hadda wada socda soo misana bari ma kala qaybsan doontaan ma rajaynayo qaybsi dambe marayo waayo tanada waayo aragnimo ku filan sababta waxa weeyaan nimankan seen tagay waxay yiraahdaan dalkan aan xaar ka saarayna waxay saxeexeen in amxaaran sideeda u joogto maqaawamadana ay saxeexaan in ay ka horjeedaan inay cambaareeyaan iyadoo amxaaran sidoo joogto waxba looga ballan qaadin amxaaran la ka kaxayn waxba in loo waxa ugu dhow waxa weeye 120 maalmood kadib marka la kadila ay kala ciidamo kale ajnabi la keeno ayaa marka Cabdullaahi Yuusuf amxaarada weydiinsan doona iga tagay wakiikan sidee baa la leeyahay weydiisanay maxaad idinku ku diidan tihiin inaad wada hadal wax ku daydaan yaa la hadlaa waxa dadkeen waxaan kala dhaxeeyaan waayo ma amxaarada waa amxaarada waa dawladda ku meelgaarka waa Mareykanka dawladda ku meelgaar ma jirto dawladda ku meelgaar ma jirto amxaara u talisa oo haday mar dawladda ku meelgaar lagu magacaabay ma jirto amxaara u talisa amxaarana ummadda Soomaaliyeed waa taqaanaado ka sugumayso inay ama ka qaadato ama xaqaaga ku mariso marka amxaara hadalkeedu waxba ma kordhinayo kuwa sanadii amxaara u taliso in talada laga haysto waxa la wuxuu kordhinaya hadalka aad la hadashay ma jirto kuwan annaga naga tagay geed walba oo fuulay inaan soo la qabayno inaan soo celino in wax walba bilaaya dhagta loo saaray marka ama soo noqonaya dad badan baa waxay qabaan amxaaradu inaysan kaligeed iska imaan yani in gadaal laga riixay oo dawladda waaweyn ay maarta hawlku fushinayaan oo shaqada wasakhda ay yani u sii qabanayso bulldozer ay ka dhigteen arrintaas wax ma ka jiraan mise waxa weeye waa humor waa ka jiraan ma waa kala qayb galeen Mareykanku waa kala qayb galay markay dalka soo galay la soo dhinac buu ka garaacay hadda ay ku jiraan meesha iyo gali kari waayaan intuu garaacabu yiraahdo argagixisa ku jirta meesha iyo gali kari waayaan wax ka tari kari waayaan ayuu garaacaya dadka xoolihiisa waa u laynaya caruurtii baa lagu laynaya dadka inta la ilaahay xoolo dhaqata waxay ku leeyahay qof argagixisaan dilina markaas boqolaal Soomaaliya laynayaan xoolihi ka laynaya يعني حتى قوانين العالم كما قال خسارة كوين الحين اللي جيشته هذا حتى أدوا حاول هذا ياد جدنا يصير إن خسارة تكون بلاد كو جيشته ما وحصلنا نواس كان تتغير وهذا مريكا كو واحد باور كو دنيا وجو باور بدي هيبة عند التراي مركا كو هذا متوحش سن يصاب حي مريكا dagaalki waxa Maxamed Daay inuu san dalka dhan wada gaarin meel ay samaantii joogina lama arko dagaalka maxaa ku diideen inaad meel kasto amxaaradu joogto inaan maartay maxay ka hortagtaa maxaad ugu koobteen meelo goob macaan kaliya meel kuma aan koobin meesha bay ka suura galayso oo dadku ishabeeyay ama tababaradu ay gaaraan ama caynkaas way socotaa kullama ay sii joogto ama ay sii dheeraato Soomaalidana way sii fidaysaa hal muqaawamadu ama halka kuwa sii fidaya laakiin badanaaba inta iyada wax kulbinay kuwa maskaxda ka haysata oo kooranaya anagu Soomaali ma nihin oo iyada xageeda dagaalka ugu jiro badan baa jira ma waxa muqdisho ka dhacay kaliya hayay Puntland maalin walba dad Soomaaliyeed baa laga qabtay loo geeyaa Hargeysa sidoo kale maalin walba dad Soomaaliyeed baa loo qabtay Tigreega loo dhiibay wali horta xamar xoog bay ku qabsatay inta maskaxda ka qabsatay ka horeysay waliina sidii bay ku shaqaysanaysaa laakiin waxa la soo gaari doonaa hadii alla yar su'aashu ugu dambaysa waxa weeye kuwa dhiibaya iyaga naftooda u dhimanaya naftooda kuwa dhiibaya dadka Soomaaliyeed inta Tigreega u dhiibaya iyaga naftooda aqalka u dhimanaya waxa isleedahay waxaan hadda dhacay waa iska yimaadaan baa la mas waxa leedahay waxba sabab u ah anaga gaabinteena keentay waxa kan waxa la gaabiyay bilaa ka soo qaad isticmaalka iyo qiso ka hadlayna sida wixii inaga isticmaalku uu sabab u ahaa dildo dhan bay saas ka dhacday laakiin haddana 40 sano xor ah inuu waxa laga soo kaman karo isticmaalka sameeyay waliga isticmaal lama eedayn karo haday tahay waxaan dambu sameeyay mooyaane wixii markii hore lama sameyn karo laakiin mar walba waxba dhacay mar aqoon darha la oran kara iyo aqoon oo dawladnimo iyo waxa ilaa lagu cusba oo markii dawladii sibilka ay joogeen asrab wuxuu dhacay ama wixii qaldamay waaya marka madama aqoon darra jirtay waxaan isleeyahay dawladii sibilka tii ugu dambeysay ba qaladka weyn ee waxan oo dhan keenay dhigtay sababta waxa weeyaan waxay ku shaqeeyeen habay leeyihiin niman rabno niman ahayn nimankii marka madaxda ah nimanaan ogoleen baarlamaanka soo gali dawladda ay bedeleen ninkii labaad ka ahaa Cabdulqaadir Sooba loo diiday inuu doorashadii inuu register gareeyo si loo doorasho isu taago
بالمثل كسoo qaad waa tusaale ugu weyn oo la soo qaadi kara marka dawladii waqtigaas ahayd waqti dhibaato ka dhacay maxaa keenay marka dawladii baa la dhacay military baa iyadoo cidla taagan qabtay kow military-gii nuuxii marka kama raynin markii hore wax wanaagsan buu qabtay laakiin haddana sida caadadu ahaan jirtay danaysi iyo rido badan baa asagana laga soo galay qabyaalad iyo waxyaabo lacaynkaas dabadna asagina waa kasii daray marka oo wal ku warwaaba la caamal caay jiray ama laga hortagi jiray ama laga hortagi karay qof ka hor yimaado xabad baa lagu dhufanayaa bay noqotay xukunkiisina marka waa dheeraaday oo waa la gaaray aakhirkiina si xun baa loola dagaalay xukuumadkina waxay noqotay in arrintii la gaarsiiyay meel laga soo celin karay yani nidaamka uu militarigu abuurtay baa wuxuu ahaa ummadii wuxuu ku abuuray is-aaminaad la-aan ummadii intay isu timaado sidaynu isaga qabanaa waa ka talin kari weydi qolo walba doonaysa in laga dagaalantaa bayada isku tashatay inta kale ka qarsato waxay sidii haddaad qaybta kala qarsato waa lagu ogaanaya adunba dhibaata kugu dhacaysa markii la riday intii ka hawl gashay ridistiisi baa wada tashan kari weydi ilaa markii hore wax iskuma ogeyn dhibaatadaas markaa burburkiisaasaa ku yimid intii burburku markuu dhacayna ayaan daro waxa u badnaa dadkii gacanta helay ama jabhadaha samaystay dad aan laaqi u ahayn ama hawlihii aan kasoo bixi karayn wax yar baa wax hadday fursadda helaan dalka wadi kari lahaa ku jiray taasina dhibaatadii bay sii kordhisay halka laada la soo gaadhay dabadeedna ajina baa la wareegayba taladiiba iyo maskaxdiiba ajina baa la wareego ku shaqaysta haddaan laakiin isku soo dubduubo mushkilada soomaalida oo dhan hal bay ka dhartaa dunida inaga keliya ma burburin dawlada burburay afrikaan 20 bay gaadhay inta burburay dunida kaleeto bosnia soo qaaday bilmatel lubnaan baa jirtay afrika intaa soo meelo dunida oo dhan waxaan waa ka dhacday in badan boqolkiiba 90 waa wada laga wada bogsaday dadka waxaas ku dhaceen oo ka bogsaday wuxuun la taaban kara isku hayaan qaar waa kala diin oo dhibaatada u keentay qaar waa kala isir qaar waa kala dhaqan qaan waa kala muxuu ahaayay waa kala luqo soomaalida intaaba waa wadaagtaa haddana waxeedii waa xallin kari weyday iyo ajnabigu waxa ka faa'iidaystay marka waxbaa jira ay intaas oo dhan kaga liidato qabyaaladda way la gartaa qabyaaladii maxaa soo afjari kara waxa kale soo afjari kara oo shariicada laakiin shariicada nafteedii waxay u baahan tahay hawlgeliyaal yani dadkii maskaxdii iyo wixii kaliya yani quraanka ma taqaanaa kaliya ma kafaaya ma noqonayso quraankan akhriya kaliya oo bas qofku waxa sameeya aayadaas ay leedahay kafaaya ma noqonayso waxa loo baahan yahay hogaamin waxa loo baahan yahay maamul kadalik fil mithl marka maxaan ku leeyahay macnaha haddii dadnimo aanay jirin shariicada dadka shariicadu waa wanaagsantahay waa okay waa waxa iyada kaliya anigu saas oo aan aaminsanay wixii Soomaaliya lagu dhaqayo dhan baan ogaa waxa kaliya mar qura markii lagu hogaamiyay afjaray wixii oo dhan soo afjaray oo dadku way macnaha waxa kamid ah wixii dadku raaco oo dadku ogol yahay baa dhismaaya isticmaalka waxa jiray in xasaab u adeegsan jiray ama qabaayil u adeegsan jiray ayaa jiray marka daakhiliyada la qaatay waxa dhacday baa la yiri wax la xalal dalay hal iscafiyay kii dambiga galay oo dadka ka galay iyo kii laga galay hadda marka waxay ku socotaa sidii oo kale ma filayo sidii oo kale dhici doonto waan filayaa in qof walba waajibkiisa la marin doono inkastoo ay u baahan tahay in laga feeyigaado aan wax kala argos la yiraahdo aanay dhicin laakiin dambi aan la wadaagin macnaha aan weynaan dambigu noqon macnaha bilmatal weynaan wiila u xujoobi karin aabihi ama walaalkii لكن شخصيات كدم بك قال يعني ما قبل إن لسامحه منفلة هي لسامح الدول. I'm
Maybe